waxaan filayaa inaad wada aragteen muuqaalka gabadhan Soomaaliyeed ee walaasheen ah Coco Bule muuqaalkeeda wada aragteen haddaadan arkin YouTube ay leedahay baraha bulshada ku jirtaa ayadoo gaari saaran eelboorka ka soo baxayso ayaa xoogaa waxa lagu sameeyay xadgudub waxayna ka hadashay dareenkeeda ka hadashay kuwa askar ajnabi wado eelboorka soo galeysay adiga checkpoint la isku helay dib u laabta durqa marka gabadha waxay ka cabaadaysaa in xuquuqdeedii muwaadinimo ee Soomaalinimo lagu xadgudbay gabadhaas hadaa idin dhaho boqolkiiba boqol way ka fiican tahay kuwa habeen iyo maalin dawladda amaano dawladda federaalka ah ee hadda jirto maxaa yeelay qof qabiilkooda madaxweyne ah ama qof qabiilkooda ra'iisul wasaare ah ama qof qabiilkooda sarkaalka ugu sareeya militariga ah ama lufluf iyo waxbay raadsanayaan horta way ka fiican tahay oo waxay u hadashay qaabka qofka muwaadinka saxda ee Soomaaliga uu u hadlo ay u hadashay qofka muwaadinka saxda cabashadiisa iyo dareenkiisa waa inuu soo bandhigo sida noqotaba ha ahaadeed ood xaqa u leedahay gabadhan Coco Bule waxay u hadashay waxa loo yaqaan the silent majority ummadda Soomaaliyeed inteeda aamusan laakiin tirada badan oo habeen iyo maalin tacadiyo la kulmo ama askarta tacadiyaha kala kulmaan ama wasiirada ha kala kulmaan ama meel ama xubin dawladda ka tirsan ha kala kulmaan ama xitaa eelboorada la dayactir waayay dekadaha la dayactir waayay mobilada laga dafaayo askari qori ku taagayo adiga the silent majority magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya dad aad u tiro badan laakiin aan hadlin amraha bulshada ku jirin oo tacdiil la kulmo iska aamuso ayaa jiro gabadhaas horta way u hadashay gabadhaas Coco waxay kala u hadashay dadka dhibaatada ayada qabsatay mid ka sii daran qabsatay aniga gabadha muuqaalkeeda markaa arkay isla markii waa qiiray sababta idin sheegaa hadda koor bulxubiga ka soo logeen shaqo ma jirto waagi wax xasuusta adiga 2010 ilaa 2011 2010 ilaa 2011 magaalada Haara ka jiro dhalinyaro leeyahay baraafidaha la dhigtaa dugsiga sare laga soo baxay jaamacadii wax la iskaga bixi ma la yaqaano dib iyo qaxar iyo rafaad iyo abtiga iyo adeerka dibadaha jiro tuug ee sheekadan ahayd dhalinyarada hadda magaalada joogto way fahmi kartaa silcan waa la soo wada maray maalin marka aniga iyo dhalinyarada soo socono ciyaal ingiriiska ku practice gareyn jirnay oo ku hadli jirnay faransiiskana waa ku hadli jirnay dhalinyarada ay la socdaan qaarkood waxa ahayn dhalinyaradii luuqadaha aad u bursan jiray ingiriiska iyo faransiiska maalina marka anagoo agmarayno lambar 4 meel loo yaqaan hotel Saxafi nin ajnabi ah oo u maleynay inuu ahay ingiriis oo camera wato labay ahaayeen gabadha la socotay askar Soomaaliyeedna way la socdaan waa la wardiinaya sawirreed qaadanayaan marka dhalinyaradeenan waa ogeedeen ingiriis tuurana marka ana ugu horeeyay waa hey how's it going haas ka soo jaray ninka ajnabiga isoo firi uu dhool cadeeyay labado erayo ingiriis oo igu soo tuuray it's going good wax sax amal oo dhahay askartii la socotay ee Soomaaliyeed laba ka mid ahaba soo booday qornigu soo aadis qori anugu aadan riishada duusaas u riixi lahay saacada mid ahaan lahayn wariya maxaa ku tirinka bax duruq ka carar meesha annagana ciyaalkeenaan shaqo la'aanta haysay wadankeena joogno oo dawladda mobilada naga dhaceyso waxay noo ahayd fursad iska ahayd xitaa turjubaan xitaa u noqon lahayn kasta ka luflufan lahayn bishii $50 wax un ka heli lahayn hay'adahan iyo tuugadan iyo saxafiyiintan magaalada joogo dhinacun ka galay naga ahayd nafsadeena ah halis gelinayni meeshii Soomaalidii askariga Soomaaliyeed oo xoogaa na dhihi lahay hawla turjubaan u raadinayo ninkan hadda afka taqaanid okay way la meeshuu na dhihi lahay asagaaba ka soo horbooday ninka cadaanka cilcinay askariga Soomaaliyeed aan laga cilcilna inuu dilu rabo Coco niyo gabadha muuqaalka ay gaarsiiyay taas ayaan horta soo marnay fursadii oo hortaagan ninkan oo asleenahay hadii xitaa turjubaan u noqon lahayn xitaa waxa diyaar u ahayn meesha qarax uu ku soo magaalada xilligaas al-shabaab dhinac ka joogay waxa isleen taqaana turjubaan u inta noqda luflufka kas yar oo hooyo guriga joogto iyo abaayo iyo ciyaalkii abaayo dhashay kulli wax un u geeyay naga ahayd magaalada waa ogeed
dadku waa silacsan yihiin marka askarigii soomaaliyeed ee na difaaci lahaay ajnabiga horboodaay inuu ku dilo rabo ciil youtube ma jirin facebook kuma jirno wax la yaqaano caan ma ahaan meelahaasa ingiriis kaga hadalnaa haddii nala dilo waxaana la dhihi lahay kan yaawaay qabiilkiisa yaawaay dhihi lahay dii maalinkaas xabad madax noogu dhufan lahay kan yaawaay qabiilkiisa ha jiito ana la dhihi lahay okay gasosi isbuuc kama soo wareegan anagoo banooni soo daawanay 2010kii waxaa socday world cup oo South Africa lagu qabanay banooni soo daawanay dhalinyarana waa iska sheekaysanayna guri hortiisa fadhina bulxuube iska sheekaysan waa iska dhoolacday dhiba jiro shaqo mehan waxba mehan laakiin waa iska faraxsanay ilaahay amarkiis dalkeena iska faraxsanay saddex askari oo dawladda ah noo timid luuqay nooga soo baxeen waryaada istaagana allah istaaga kac waa kacna afraana la hor kacana allah mugdi habeen waa saddex saac been maal jooga ama 9 waa hor soconaa waxayna leeyihiin waa maqlaynaa mugdi igana daba socdaan qoriga madax nooga hayaan ma soo jeesan kartiin aan allah waa sii soconaa buurta sii kulona half a mile aan lugaysi argeyso waa wallahi inta muku dilnaa maya xaga noogay wajiyada aragno waa maqlona waxayna leeyihiin inta muku dilnaa maya mid kale wuxuu leeyahay iftiinka noogay wajiyadooda aragno oo midna leeyahay midna wuxuu leeyahay inta muku dilnaa muwaadiniin Soomaaliyeed nahay waana la sii wataa wax aad galabsan habeertay ma jirto al-shabaab ma nihin waana la nabooyaa dhalinyaro fara badan asaas lagu cunay maalinkaas waa horta maalinka anigu go'aansaday in horta dalka soo tago dalkii aad jeclaay aad joogay ee aslaha iskaga shaqeyso meesha ku gasho marka kooko gabadhan waxay u hadashay dadka dhibkaan iyo dhib ka daran soo arkay horta way u hadashay waxaan leenahay ani waxa u arkaa hadalkan inaad hadli kartid ba maanta adigoo waliba caan ah oo codkaada meel dheer u gaarayo inaad hadli kartid dad far badan kicisay oo dareenkooda yani dhibaatada noocan iyo wax la mid ah soo maray marka wallahi horta waxaan leeyahay dalka dhibaa ka jiro dadka ugu doqonsana maanta waa kuwa iska taageerayo waxaan dawlad taageero kuma dhismato dawlad dhaliil ay ku dhismataa xitaa haddaa isleedahay way saxan tahay dhaliisha dhinac kala gal war adduunku waa ujeedaa meel uusan mudaharaad ka soconin maanta male ayagoo nabad iyo dawlad iyo nidaam wax kasta haysto intaas qofka muwaadinka wuxuu mudaharaadaya wax yara qaldama hala soxo dulligan soo hortaagan oo waa saxsan yihiin waa fiican yihiin madaxweynuhu okay waay waxaas wax wadanka qarib gabadha marka kal iyo lab 100% Soomaaliga boy uu taageersan